فهد ياسين حاج طاهر iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dalka ayaa ku adkaan doona kursiga u sareeya ee dalka waxaan kula wadaagayaa loolanka adag ee ka dhaxeeya madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale fahad yaasin xaaj daahir oo mar ahaa saaxiibo ku midaysan xisbiga nabad iyo nolol sidoo kale waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay ee loolanka loogu jiro kursiga u sareeya ee dalka mucaaradka ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore sidoo kale maamulada Jubbaland iyo Puntland wararka ay soo saareen ayaan iyagana kula wadaagayaa balse marka hore wax ka codsanaya inay YouTube ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalkana like saarto si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha ah ee ku saabsan deegaanada Soomaalida ee aan halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta dalka dib u soo laabtay kadib muddo uu dalka dibadiisa ku maqnaa farmaajo ayaa la filayaa inuu magaalada muqdisho ka bilaabo aandhehe ololihiisa doorashada iyo sidoo kalena uu dhiso xisbigiisii nabad iyo nolol oo inta badan hadda raggii xisbigaas kula midaysnaa oo ugu weyn yahay fahad yaasin xaaji daahir ay kala tageen dhowaan fahad yaasin xaaji daahir ayaa ku biiray xisbi kale oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka saacid shirdoon waxaana la leeyahay waa labada nin oo loolanka adag uu dhex mari doono inta lagu jiro ololaha doorashada waa fahad iyo sidoo kale farmaajo sidoo kalena waxaa la eegi doonaa farmaajo xisbigiisa yuu ku soo dari doonaa ma ka maarmi doonaa fahad ayaa la leeyahay oo ma keensan doonaa rag si fiican ugu ololeeya inuu noqdo madaxweynaha dalka dhanka kale madaxweyne farmaajo oo maanta dalka ka soo degay ayaa la eegi doonaa in dhanka uu ku biiri doono oo waa mucaaradka iyo sidoo kale muxaafidka madaxweyne xasan sheekh maxamuud aandhehe waxa uu wadaa doorasho qof iyo cod ah xilligii farmaajona isaguna wuxuu waday doorasho qof iyo cod waxa la leeyahay ma doorashada qof iyo codka ah ayuu dhinac ka qabsan doonaa oo xisbigiisa ayuu ku tartami doonaa mise waxa la leeyahay mucaaradka oo diidan qorshaha uu madaxweyne xasan sheekh wado oo ah doorashada qof iyo codka ah ayuu raaci doonaa wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in marka ugu horeysa madaxweyne farmaajo oo xisbigiisa dhisi doono ka bacdina uu ka hadli doono doorashada dalka iyo sida loo qaban karo waana dooda ugu weyn dalka ka taagan sida loo qaban karo doorashada waxaana leeyahay xilligii ama muddaxileedkii madaxweyne xasan sheekh waxa ka dhiman 101 maalin kaliya ayaa ka dhiman waxaana la filayaa madaxweyne farmaajo sida aan warar ku helin waxa la leeyahay waxa uu ku biiri doonaa mucaaradka oo wuxuu ka soo horjeesan doonaa doorashada uu wado xasan sheekh maxamuud maadaama muddo kooban oo aan lagu qaban karin doorashadaas ay ka dhiman tahay dhanka kale waxaa leeyahay xasan sheekh maxamuud waxa uu wadaa muddo kororsigii ugu weynaa kaasoo ah 3 sano inuu ku darsado dalkana doorasho qof iyo cod uu ka qabto sidaasna uusan mar dambe isku soo sharixin ayay leeyihiin wararka inta badan aan helayno oo doorashada ku saabsan dhanka kale mucaaradka Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin ama madasha mucaaradka ay ku midaysan yihiin Puntland Jubbaland iyo sidoo kale rag kale oo xilalka ugu sarsareeya dalka soo qabtay sida madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha oo Nairobi ku shiray dhawaan waxay dhaheen waxaan qaban doonaa shir weyn oo laga arrinsan doono sidii dalka loogu jahayn lahaa doorasho waxaana la leeyahay dhawaan waxa ay imaan doonaan in magaalada Kismaayo halkaasna waxa ka dhici doona shir weyn oo looga arrinsanayo sidii dalka doorasho loogu jahayn lahaa waxaana leeyahay haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qaban waayo doorashada ama muddayn waayo doorashada xilligeeda waxa la leeyahay mucaaradku waxay rabaan in magaalada Kismaayo ay ku qabtaan doorasho ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya waa sida aan ku helayno wararka doorashada